Ku soo dhawaada dhammaantiin mar kale casharradeydii taxanaha ahaa ee barashada luqadda Jarmalka ee ardayda ku cusub ama bilaabaysa luqadda Jarmalka. Waxaynu ku soo sheegnay casharkeennii ugu dambeeyay in datifku qaato ficillo u gooni ah. Datifku wuxuu datif noqdaa marka loo isticmaalayo ficillada u gooniga ah. Haddaba casharkan waxaynu ku baran doonaa ficillada datifku uu iska leeyahay ee isaga uun loo isticmaalo. Daawasho wacan. Haddaba aynu bilowna casharkeena aynu eegno maxay yihiin ficillada datifku. Aynu usoo qaadano tusaale ficilkan helfen. Ish helfa dia waan ku caawinayaa adiga. Ish waa subjectigeena oo ah ficil sameeyaheena, halka diana ay tahay datif objectigeena, halka helfena ay tahay ficilka uu datifku leeyahay. Haddaba waxaa jira ficil khaas u ah oo qaata datif objectiga oo keliyata. Bal haddaba kuwaas aynu ku eegno tusaalayaashan soo socda. Soo qaadano tusaale ficilkan kale ee datifka ah. Gefallen macnaheedu waa ka helid. Gefällt dir mein neues Kleid? Ma ka heshay dharkayga cusub? Dir ayaa ah datif objectiga, halka gefälltna ay tahay feebka. Ficilka xiga antworten macnaheedu waa jawaab. Warum antwortest du mir nicht? Maxaanad iigu soo jawaabaynin? Sababta aanad iigu jawaabin aniga maxay tahay? Mir ayaa ah datif objectiga. Ficilka xiga gehören macnaheedu waxa weeyaan lahaanshiyo ama waxaad adigu iska leedahay. Das Handy gehört ihm. Telefonkaas isagaa iska leh. Ihm ayaa ah datif objectiga, halka gehörtna ay tahay feebka jumladda. Glauben aaminaad. Warum glaubst du mir nicht? Sababta aanad ii aaminin aniga maxay tahay? Mir ayaa ah datif objectiga, halka glaubstna ay tahay ficilka jumladda. Ficilka xiga gratulieren waxa weeyaan u hambalyeyn. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Waxaan kuugu hambalyeynayaa adiga dhalashadaada. Ficilka xiga passen ku habboon amba ku soo baxaya. 9 Uhr passt mir gut. Sagaalka igu soo baxaya ama igu habboon. Mir ayaa ah datif objectiga. Ficilka xiga schmecken. Der Kuchen schmeckt den Kindern. Keeg wuxuu u dhadhamayaa carruurta. Haddii aad ka hadlaysid wax jamac ahna waxaad odhan kartaa tusaale ahaan Die Pizza schmeckt uns sehr gut. Pizzadu way noo dhadhamaysaa annaga si wanaagsan. Ficilka xiga schenken macnaheedu waxa weeyaan waa siin amba hadiyadeen. Ich schenke meiner Frau Blumen. Ich schenke meiner Frau Blumen. Waxaan siinayaa gabadhayda ubaxyo ama waxaan u hambalyeynayaa gabadhayda ubaxyo. Meine Frau ayaa ah datif objectigeena, halka shenkana ay tahay ficilka jumladda. Ficilka xiga schaden waa waxyeelid amba dhibaateen. Rauchen schadet der Gesundheit. Sigaarku wuxuu dhibaateeyaa caafimaadka. Schaden ayaa ah datifka ama ficilka jumladda ee datifka objectiguna datif objectiguna waa der Gesundheit. Ficilka xiga vertrauen. Vertrauen waa aaminaad. Ich vertraue dir nicht mehr. Aan ku celiyo mar kale. Ich vertraue dir nicht mehr. Kuma aaminaya intaa in ka badan. Vertrauen ayaa ah ficilka oo datif ah, halka diana ay tahay datif objectiga. Ficilka xiga feetun. Feetun dhaawicitaan amba xanuun. Fu tut es dir weh. Halkee ku xanuunaysa ama halkee ku xanuunaysa adiga. Haddii uu madaxu ku xanuunayo tusaale ahaan waxaad odhan kartaa meine Kopf tut mir weh. Madaxa ay xanuunaya. Ficilka xiga function waxa weeyaan macnaheedu rajayn. Ich wünsche dir viel Glück. Waxaan kuu rajaynayaa adiga nasiib wacan. Ficilka jumladdu waa wünsche oo ah datif, halka diana tahay datif object. Dia macnaheedu wax kale maaha waa adiga Soomaali ahaan.
ficilka xiga zeigen macnaheedu waxa weeyaan waa tusid. Ich will dir etwas zeigen. Waxaan rabaa inaan wax ku tuso. haddii uu qofkaas leedahay waxaasuu i tusayna waxaad odhan kartaa tusaalaha hat uns seine Fotos gezeigt. Wuxuu isaguna tusay annaga sawiradiisa. ficilka xiga zuhören macnaheedu waa dhegaysasho ama dhegaysi. Meine Kinder hören mir zu. Carruurtaydu way i dhegaysanayaan aniga. haddii aysan carruurtaadu ku dhegaysanayna waxaad odhan kartaa Meine Kinder hören mir nicht zu. Carruurtayda ima dhegaysanayaan. ficilka xiga geben macnaheedu waa siin. Gib mir bitte dein Handy. Isii taleefankaaga fadlan. Mir ayaa ah dative objectiga halka gibna ay tahay ficilka. haddii aad taleefanka siisana waxaad odhan kartaa ich habe ihr das Handy gegeben. waan siiyey iyada taleefanka. ficilka xiga danken mahadcelin. Ich danke dir für deine Hilfe. aan ku celiyo mar kale. Ich danke dir für deine Hilfe. Dir ayaa ah dative objectiga halka dankana ay tahay ficilka datifka ah ee jumladda. waan kaaga mahad celinayaa caawimaadaada. ficilka xiga fehlen macnaheedu waa xiisid amba xiiso. Du fehlst mir. waan kuu xiisay. mir ayaa ah dative objectiga. haddii ay wax kaa maqayn ama wad wax u xiisteen waxaad odhan kartaa tusaale ahaan su-aal ahaan was fehlt dir. maxaad u xiistay amba maxaa kaa maqan. haddaba waa kuwan personal pronomanka datifku. wixii ish ah wuxuu noqdaa datifka mir aniga. wixii du ahna wuxuu noqdaa datifka dir adiga. wixii aya ahna wuxuu noqdaa datifka im isaga. wixii si ahna wuxuu noqdaa datifka iyada. wixii esna wuxuu noqdaa datifka im oo ah isaga. wixii fia ahna wuxuu noqdaa datifka uns. wixii iya ahna wuxuu noqdaa datifka euch idinka. wixii si ahna wuxuu noqdaa datifka ihnen adiga oo idinka. wixii si ahna wuxuu noqdaa datifka adiga oo ah ixtiraam. haddaba ka jawaab su-aalahan haddii aad casharka fahamtay. haddaba su-aasha koowaad warum hilfst du nicht. maxaanad sababta aanaad noo caawinayn maxay tahay. fideoga istaajiso oo isku day in aad ka jawaabto su-aasha. fia maxay noqotaa datifka. jawaabtu waxay noqonaysaa warum hilfst du uns nicht. sababta aanad noo caawinayn annaga maxay tahay. su-aasha labaad das Buch gehört maxaa gelayaa ish halka ay joogto maxaa isku bedelayaa dative objectiga. istaajiso fideoga oo ka jawaab su-aasha. jawaabtu waxay noqonaysaa das Buch gehört mir. buuggaas aniga ayaa iska leh ama buuggaas anaa iska leh. su-aasha saddexaad ee xigta ich wünsche schönes Wochenende. waxaan ii rajaynayaa usbuuc dhammaad wanaagsan. maxay noqotaa iya marka dative objectiga nala joogo ama datifka laga hadlayo. jawaabtu waxay noqonaysaa ich wünsche euch schönes Wochenende. waxaan ii rajaynayaa idinka usbuuc dhammaad wanaagsan. euch weeyaan jawaabtu. haddaba su-aalahan kalena meel ku qoro oo isku day in aad ka jawaabtid. haddii ay kugu adkaadaan ood ka jawaabi kari weydidna commenti ahaan kusoo qor si ardayda intii garanaysa ay kugu jawaabto amba aan aniguba kugu soo jawaabi karo oon kuu soo sixi karo. haddii aad kasoo jawaabaysid dhammaantooda kasoo wada jawaab oo hal mar kusoo wada qor meel kolba xabad ha kasoo jawaabin. danke mahadsanid. waad ku mahadsan tahay intaad i dhegaysatay ee aad i daawatay. waan rajaynayaa inaad dhammaantiin wax badan ka wada fahanteen casharka. haddii aad casharka ka heshay fadlan sheer gare oo la wadaaga asxaabtaada iyaguna jecel inay bartaan luuqadda Jarmalka. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe gare si aad ula socotid casharro kale oo fara badan.